wafdi uu hogaaminayay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Maxamed Cabdullaahi Buraale Raaxaye oo safar dhanka dhulka kaga soo kici timay degmada Buloburta ayaa gaaray degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan waxa uuna gudoomiyuhu kulan la qaatay dhalinyarada degmada Jallaqsi oo baahi weyn u qabay la kulanka gudoomiyaha ugu horeyn qaar ka mid ah ururka dhalinyarada degmada Jallaqsi oo ka hadlay munaasabada soo dhaweynta ayaa degmada Jallaqsi ku soo dhaweeyay gudoomiye Raaxaye maanta farxad noo ah inuu gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan oo noo yimid annagoo dhalinyaradii degmada Jallaqsi 5 sanaba aan ma taqaanahay wax hadda gudoomiyaha oo noo imaaday oo nooga yimiday ma taqaanahay ururka dhalinyarada xaqi aanan haynin maanta uu noo yimiday waxay noo tahay farxad aad iyo aad u weyn waa ugu mahad celinaynaa farxadaas maanta uu nooga yimid gudoomiyaha ururka dhalinyarada waxaan kaloo rabaa in halkan aan ka sii sheego ururka dhalinyarada degmada Jallaqsi dhalinyarada waa halkan waa ku sugan yihiin inta badan waxay intaas ay sii lahaayeen gudoomiye ku meel gaar ah oo horay ma taqaanaa ayagu u sameysteen maadaama gudoomiye ururka dhalinyarada oo intaas uu noo imaan ayagu waxay sameeyeen ururka waxa si shaqeynaa maamulka ay la sii shaqeeyaan laakiin maanta waxaan aad ugu faraxsanahay runtii inuu nala joogo gudoomiyihii maaragtay gobolka Hiiraan dhalinyarada aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii taasina waxaan qiyaasaa inay meesha ka saartay insha Allah Jallaqsi in la imaan karin Jallaqsi waxaan aaminsanahay inay nabadgelyo tahay markii loo fiiriyo gobolka Hiiraan waxaan aaminsanahay inay tahay meesha ugu amniga fiicanba oo maanta waxa arkaysaa ma arkaysid qarax ka dhaco ma arkaysid waxaan aaminsanahay ma arkaysid maarad qof la dilay waa dhacdaa in badan laakiin haddana waa ugu yartaa alxamdulillah soo dhaweynaa martida sharafta leh ee nooga imaatay gobolka Hiiraan baladweyne waxaa kaloo soo dhaweynaa maamulka degmada ururka dhalinyarada oo kulli gudoomiyahoodii ay ka isku duuban yihiin waxa farxad weyn inoo ah mas'uuliyiin ka socota gobolka inoo timaado waxay noo tahay dhiirigelin waxay noo tahay wacyigelin waxay noo tahay ku dayasho marka waxaan rajaynaynaa si guud iyo si gaarba inaan ula shaqeyno hadduu Ilaahay yiraahdo wixii baahiyo ay degmada u baahantahay kulli dadka iga dambeeyaan ka hadli doono waan mahadsantiin salaam calaykum maadaama in badan aan ka wada hadlaynin Mr. Raaxaye inuu degmada imaado maantana kulli uu ku dhameeyay balantii waa naga ajiibay marka waa Ilaahay mahadiis maanta waxaan rabnaa marka in dhalinyaradii degmada Jallaqsi ay isku duuban yihiin ayna diyaar u yihiin in ay wax wada qabsadaan oo degmadooda ay kor u qaadaan marka waxaan kulli anigu gudoomiyaha dhalinyarada degmada Jallaqsi muddo 2 sano iyo bar ayaan ahay inkastoo xaalado adag dana aan ku soo shaqeynayo xilligaas uusan saamaxaynin in dadku oo cod ay ku qaataan haddana maanta waxaan diyaar u ahay in dhalinyarada ay fadhiistaan oo codkooda ay ku doortaan gudoomiye dhalinyarada degmada Jallaqsi sidoo kale qaar ka mid ah maamulka degmada Jallaqsi ayaa halkaas si hadal ka jeediyay halkan waxaan ka soo dhaweynaynaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan wax badan ayaan sugaynaa ururka dhalinyarada in si fiican loo qaabeeyo si fiican loo dhiso oo ka qayb qaato sida ururada dhalinyarada degmooyinka Beledweyne iyo Buloburta iyo Jallaqsi iyo Maxaas iyo meesha la yiraahdo Mataban nasiib wanaag maantayna soo gaartay mudana gudoomiye waxaan ka codsanaynay oo ku sugaynay in badan in aad degmadeena timaado degmadeenu waa nabadgelyo wax dhiba kama jiraan amnigeedu waa wanaagsan yahay waxa waaye inaan gobolka 90% ka fiicanahay ayaan aaminsanahay inaan ka ammaan fiicanahay in aan la tagi karin gobolka 5 kiiloomitir haddii la dhaafo in cadowgu taagan yahay annagana hadda waxaan ku soo wareejin karnaa ilaa 40 kiiloomitir oo magaaladan ka baxsan oo tuulooyina ku geey karnaa horta ninka si kada kaga u fikiriyo waxa la adeegsanayo maanta dalka burburina waa dhalinyaro waxa maanta mustaqbalkii nolosha u baahan waa dhalinyaro aniga waqtigaan waa soo qaadan marka dhalinyaradu waxa ku boorinayaa inay hor u socdaan ficil dhalinyaro iyo midkii qaab kala qaban la soo jiido qolooyinka hay'adaha iyo madaxda hadda joogto oo gudoomiye u sareeyo waxaan ku boorinayaa in shaqooyinka la qoro oo la isku qabsado qabiilka lagu bixin lagu bixin urur lagu bixin ururka dhalinyarada lagu bixin ururka ninkii laga waaya shaqo ku mala dalka waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada iyo wafdigiisa runtii gudoomiye aniga laftaydu in badan kaama soo horeyn waxaan isleeyahay Beledweyne aad muddo sanadkii 2012 igu soo dhaweysay anigoo ka imid aaga waqooyi Kalabayr waxaan aaminsanahay haddana waxaan joogaa Jallaqsi intaas sano u dhaxaysana waa dareemi kartaa jamhadii iyo hawshii iyo shaqadii iyo dawladnimadii aan ka soo wadnay waagaas aan ka soo bilownay Beledweyne aan hadda ku soconaa Jallaqsi
mudana gudoomiye ku soo dhawow degmadaada Jalalaqsi dhalinyarta waatana waa ku heelan tahay maamulku uu ku heelan yahay shacabku uu ku heelan yahay si guud iyo si gaarna waan u sii wada kulmaynaa dhalinyarta dhammaantood laakiin maanta raaxaya wuuna matalaa maanta raaxaya raado intuu ka tagay waana dooranaynaa awalna waa dooran waana soo dhaweynaynaa asoo noo imaana ma dooranay hadda noo maxaan ku diidaynaa waa maya dooranayna hadii ilaahay rabbina kariim cid kastoo na tixgelidana waa tixgelinaynaa aad iyo aad mahadsantiin ugu dambeyn waxaa si wada jir ah kaga mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyay isla markaana ka warbixiyay ujeedka safarkooda afayeenka ururka dhalinyarada degmada Buulaburte Cabdullaahi Faarax Aadan iyo gudoomiyaha guud ee ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Maxamed Cabdullaahi Buraal Raaxaye Jalalaqsi waa mahadsantihiin safaran ku nimid kabayna wali gishanahay sidaad u heelantihiin ma filaynin inaad sidaan tihiin inkastoo hadda aan nahay degmooyinka isugu dhow haddana xogteena aad ay u kala fogeed sababtoo annagana mooran ku jirnay adinkana moora kala ku jirteen marka xiriirkeena aad u yaraay gudoomiyahana dadka ku dhiirigeli in Jalalaqsi la mari karo dhanka bari la tagi karo aniga 60 kilomitir ee Buulaburte jirtaa ma aaminsaneen in la dhaxso karo waliba xoogaa waxa la dhahay dhanka qoraxsanka iska ilaali kor iska fiiri marka haddaan tagay wixii waxba isbedel male tan dhalinyarada marka sida adiga aad tihiin anaga waa soo ahayn 2016 bishii March 22 oo ninkaan oo yimid sida ninkaan ku meel gaar wuxuu noo ahaay nin la yiraahdo haddana ah Xasan Axmed Cilmi Xasan Geesdiir maandayda la sameeyay waa la sharciyay maalintaas loogu daray haddana haduu ilaahay yiraahdo bisha Maarso gudaheeda ee doorashada in bishii hadda naga soo dhamaatay inay dhacdo waa dhici waysay sababo jira aawadood laakiin waxaan hadda astaysanay inaan ka dhigano bacda May ninkaan doorashadiisa kadib inaan anagana ka dhigan adikana inaad wax doorataan waa mid meesha ku jirto wareen waxaan idinkaga mahadcelinaa soo dhaweynta la ii sameeyay runtii waan gudoomiyaha dhalinyarada gobolka 5 sano ahay waa 5 sano gudoomiyaha dhalinyarada gobolka ahay oo waqtiga loogu talagalay haddana insha Allah bisha May aan doorasho sameey rabno runtii waxaan ku mitiday inaan horta imaado Jalalaqsi waxaa laga aaminsanayaa in la tagi karin maaragtay oo qof kasta ay halis tahay ay dhib badan tahay runtii markii la dhisay ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Jalalaqsi markaas xor ma ahayn iyo Buulaburte kamaysan qayb galin duruufo jira awgeed ilaan xor ma ahayn oo maysan imaan karin markaas maamulka kama talinaynin laakiin matabaan iyo baladweyne waxay iska hayeen meelo nabad oo laga shaqeyn karin runtii ani waa tagay degmada matabaan gudoomiyaha dhalinyarada degmada u soo sameeyay maxaas waa tagay Buulaburte waa imid intaba maaragtay waxaan ka qayb qaatay gudoomiyaasha loo sameeyay laakiin Jalalaqsi ma imaan haddii anoo saana xilka ka degana maaragtay waxay ugu ahaan lahayd ceeb horta bal mar inaan imaado dadkuna ay arkaan Jalalaqsi in la tagi karo inaad ka qayb qaadatiin inaad xubnaha gobolka la dhisi doonaa xubno ku yeelatiin maaragtay way qofka doonan kamid ahayn mar walba lama soo xasuusan karo wax badan dhinaanayo laakiin marka wax la dhisanayo urur dhalinyaro sideedaba ma ahan sida maamulka dikreeto oo 5 bilood 3 bilood lagu cayaarayo ma ahan ma cid dhisi karta ma aan ayaas dhisi kara bas sida xeerka ku yaala maaragtay runtii aniga muddada hay ururka waxaan ka shaqeeyay ururkiina magac yeesho inuu heer gaaro maanta aniga aanoo ah gudoomiyaha dhalinyarada gobolka waxaan ka mid noqday xubnii ugu sareeyay dhalinyarada qaranka ee loo sameeyay xubnaha 9 ahay runtii dadaal iyo maaragtay juhdi ee dhalinyarada gobolka sameeyaan ku gaaray waa idinka cudur daaranaya marka hore inaan jaanis isku weyn inaan imaado laakiin waxaa ka xumeed inaanan idin wada imaanin maanta way ka fiican tahay inaad idin imaado inaan arko baahiyin inaan arko inaan dhibkeedin haysto ogaado inaan maaragtay waxyaalihii qaab dhismeedkiina hataa idinka qaldan inaan idinla soxo inaan si wada jir aan shir jaraa'id u qabanno doorashada soo socota oo May insha Allah aad ka mid noqotaan xubniina ay ka qayb galaan oo tagtaan sidii markaas lagu heshiyo awoodda dhaqaale oo loo helay ku xiran tahay mar walba inaad maaragtay mar walba dad matalaad inay meeshaas idin joogaan aad wax ku yeelataan waqtiga iska qornaa maanta inaan idin imaado Jalalaqsi qof walba wuxuu leeyahay ma la tagi karo aniga taa waa aaminsanahay runtii laakiin nasiib wanaag maalmahan maadaama aan Buulaburte bil joogay inaan bal aan gudoomiyaha dhalinyarada noo wada xiriirnay sidoo kale ninkaas asna waa wada xiriirnay rag dhalinyarada kamid ah wada xiriireen inaan imaado aad ay soo xiriiriyeen
waxaan dareemayaa maaragtay inaad idinkana dareemayseen inaad guddoomiyihiin oo idin imaado waayo waxaan guddoomiye ku ahay runta marka laga hadla idinka waaye laakiin beledweyne haddaa iska fadhiya guddoomiyaha degmada noqonaya oo beledweyne inaan muujiyo bal horta inaad idin imaado oo iswada aragno si goonina waa u sheekaysan doonaa waa booqashadii ugu horeysay ee uu guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka hiiraan ku tago degmada Jallaqsi tan iyo intuu hayay xilka guddoomiyenimo.